war-saxaafadeed ku saabsan geeradii ku timid marxuum sheegow axmed cali. marxuum sheegow axmed cali maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday 2 bishii 11aad 2023 waxayna ku xukuntay mag iyo 10 sano xabsi ciidan ah. marxuumka xukunka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ku riday wax abiil ah rafcaan ah kama qaadanin. taariikhdu markay ahayd 13kii bishii 3aad 2025 waxaa warqad nooga timid xabsiga dhexe ee xamar. warqadaas oo ku saabsaneed in sheegow axmed cali uu xanuunsan yahay. maxkamadda sare ciidamada qalabka sida 13kii bishii 3aad 2025 waxay amartay in la geeyo isbitaalka Martini. isla taariikhdaas bishii 3aad 2025 waxaa la geeyay isbitaalka Martini sheegow axmed cali. baaris caafimaad ayaa loo sameeyay. taqaatirtii baarista caafimaadka u sameysay sheegow axmed cali waxay cadeeyeen in uu qabo cudurka cagaarishowga. waxayna sheegeen in beerkiisa uu adkaaday lagana yaabo in uu isku bedelo cudurkiisa kansarka beerka. maadaama sheegow axmed cali xaaladiisa caafimaad ay halis ahayd ayna darneed, maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay amartay ama ogolaatay in laga saaro xabsiga dhexe inta baasabor loogu sameynayo fiisana loogu dalbayo lagu hayo isbitaalka Digfaar. taariikhdu markay ahayd 3 bishii 4aad 2025 waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida bukaanka u dalabtay asagoo ku jiro isbitaalka Digfaar in loo sameeyo baasabor. hay'adda socdaalka jinsiyadaha way ka soo jawaabtay in loo fududeeyo bukaanka baasaboorkiisa asagoo ku jiro isbitaalka Digfaar. isla taariikhdaas ayaa hay'adda socdaalka jinsiyadaha waxay u sameysay baasaboorkiisa. taariikhdu markay ahayd 6 bishii 4aad 2025 maxkamadda sare ee ciidamada qalabkiisa ay amartay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya in loo dalbo sheegow axmed cali iyo wiil uu adeer u yahay maxamed cali cismaan fiisaha dalkugalka India. wasaaradda arrimaha dibadda isla taariikhdaas oo ahayd 6 bishii 4aad 2025 waxay warqad u qortay safaaradda India ku taalo Nairobi. intaas kadib waxaan la xiriirnay isbitaal ku yaalo wadanka India waxaana ka codsanay in uu soo diro casuumaad caafimaad sheegow axmed cali iyo wiil uu adeer u yahay. isbitaalkii wuu naga aqbalay wuxuuna u soo diray invitation letter medical ayush visa. taariikhdu markay ahayd 7 bishii 4aad 2025 nasiib daro marxuumka waxaa u timid tii alle uu geeriyooday. wuxuuna ku geeriyooday isbitaalka Rajab Tayyib Erdogan loo yaqaano Digfaar Hospital. taqaatirta isbitaalka waxay soo cadeeyeen in uu u geeriyooday marxuumka kansarka beerka. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wa billahi tawfiiq.